waxa kacdoon baa jiray nolol adag laga hadlayay laakiin waxyaabahaas oo dhan markaa isku darto waxaa kuu soo baxaya maraykanku hadduu Iran ciidan ku aado tii Vietnamtu ka daraa dhacaysa ma aadi karo keentay in afka noolo u noqon Trump oo aanu tabar iyo awood ciidan oo uu maanta Iran ku maqoonin karo inaanay meesha dambe oo baaki ku jira oo suganayo doonayo inuu ku jabo meeshaan oo weligii ka lug bixin Chinese iyo Ruushka labaduba oo laba super power oo laba dal hadii aynu daawadayaasha dib u xasuusinana Trump waxa uu yiri 4 ilaa 6 week ayaan ku soo afjaraya dhinaca kale haba yaraatee wax allaaliya wixii dagaalka loogu galay oo weerarka loogu qaaday Iran wax uga hagaagay Trump iyo Netanyahu midna ma jirto marka la eego nuclearkii Iran marka la eego dawladdii inaan la fashilinin iyo arrimo kale oo waaweyn oo dagaalka markaas guddigu ahaa in Iran lagu qaado Iran ayaa dhanka kale lagu soo waramayaa kalsooni inay ka qaaday in afka ciidda loo dari waayay oo meeshii ayada in la soo weeraro isdifaacda ay sugaysay haatan ayadaaba baxsanaysa oo weerar qaadaysa taariikhdu waa 9 bisha 6 sanadka 2026 si aynu haddaba wax uga ogaano daawadayaal wararkii ugu dambeeyay khabiirka weyn injineer Axmed Abdidoon ayaa il gaar ah ku hayay wararka caalamka mar walbana ku hayay muddo dheerna jaamacad xaqiiqatan aan laga dhargeynin oo xog iyo faallo aan meel kale laga helaynin mar walba markaas nala garab taagnaa waqtigiisa aad baan uga mahadcelinaynaa injineerka hadduusan halkan joogin inta badan waxaad ka helaysaan channelka asagoo noo furay ee anigu aan ku taxanahay ee idinku aad ku taxantihiin markaas wararka ugu dambeysay aad ka helaysaan injineere mar kale sharaf iyo karaama ii tahay soo dhowow aadaad umahadsantaha cabdixaafid waa ku salaamaya salaan qaas adaa leh aad iyo aad waa ugu faraxsanahay inaan fursad isu helnay mar kale waxaan rajaynayaa inaan marar badan isu heli doono daawadayaasha sharafta iyo karaamada leh waa soo dhoweynayaa aniguna waa dhowa aad baa injineer u mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa injineer adiga kugu hormariyo maxaad akhrinaysaa maxaad maqlaysaa caalamka maxaa ka dhacaya labadii saacadood u dambeysay cabdixafiidoo caalamka waxyaabo fara badan baa ka dhacaya waxaana runtii anigu aad isha ugu hayay bariga dhexe khaasatan Iran iyo Maraykanka waxaa muuqata in Maraykanku fashil aad iyo aad u weyn uu dagaalka ka qaaday waxaa muuqata fashilka Maraykanka ka sokow Israa'iil inay hoyan la'dahay harsan la'dahay saxaafadda Israa'iiliinta haddaad u dhabagasho marxalad adag ayay galeen ujeedooyinkii dagaalka loo galay waxaad la socotaa Donald Trump ma aanu dhegaysan siyaasiyiinta Maraykanka ma aanu dhegaysan sirdoonka Maraykanka ma aanu dhegaysan ciidamada Maraykanka balse xogta uu ku dagaal galay xog waxay ahayd Mossad iyo mataqaana gaashaandhigga Israa'iil iyo Netanyahu ay dhegta ugu dhibciyeen arrintaas cawaaqibkeedu wey waxa hadda lala fadhiyo waa la marhabaabiyey Israa'iil waxay muddo 30 sano isku dayaysa inay dagaal gasho taasna waxay keentay maanta inay iyagii ishaystaan oo Israa'iil Netanyahu iyo Donald Trump ay aad iyo aad isu haystaan wararka ka soo baxaya waxa weeye maalin dhowta in la iscaayo la isla gaadhay gaarto Donald Trump wuuna qirto dhowr jeer oo erayada asagoo isticmaalay F-wordka isticmaalay inuu ku yiri haddaysan aniga ahayn xabsi baad liinta ku cabi lahayd hadda aniga ku badbaadiyey adiguna xaggaaga maxaan ka helay mar walba inaad u fashiliso Israa'iiliintu waxay isku dayayaan inay Maraykanka fashiliyaan laakiin arrintu taladu waxay faraha ka sii baxday markii Iran ay ku hanjabtay haddaanay joojin dagaalka ay ku wadaan Hezbollah in ay soo faragelin doonaan tii oo ay ka dhabeeyeen habeen hore oo runtii weerar aad iyo aad u culus oo sida loo sheegayo ka culus runtii ayay qaaday waxaa muuqato hubaal ah oo hadda la xaqiijiyey daqiiqadii ugu dambeeyey la xaqiijiyey in Israa'iil 3 military bases ama raado saldhigyo military ciidanka cirkana ah sababtoo Iran waxay eegaysay waxa ay Israa'iil ku dagaal tagtaa inta badan waa ciidanka cirka loo karaan waxaa la leeyahay saldhigga Ramad la yiraahdo Ramad David oo waqooyiga ku yaala saldhigga la Nevatim oo bartamaha ku yaala
iyo kan koonfurta ku yaalla ee telnof la yidhaah saddexda saldhigba waxa weeye dhaawac aad iyo aad u weyn baa la gaarsiiyey waxaana la soo saaray hadda satellite sawirro satellite-ka lagu qaaday oo la isbarbardhigay siduu marka hore ahaa iyo siday hadda yihiin nabarro aad iyo aad u culus oo aanay marnaba filaynin ayaa cabdixafiidow la qaaday taasna weeye dooda hadda ugu badan iyo hadday noqon lahayd gudaha israa'iil iyo hadday noqon lahayd gudaha maraykankaba doodaha ugu badan oo mataqaana la fadhiyo waddankii la yidhi ciidankiisa cirkaa la baabi'iyey waddankii la yidhi gantaaladii baa la burburiyey waddankii la yidhi ciidankii baddaa la baabi'iyey ayaa asagu wuxuu ku dhiiraday inuu weerar ku qaado israa'iiliinta oo runtii aalaaba ka dhigtay shaqo inay dumar iyo caruur iyo dad masaakiina iyo tuulooyinkii la deganaa oo dhan ilaa 56 tuulaa la burburiyey dooda ugu weyn marka cabdixafiidow hadda waa arrintaas ayay ku salaysan tahay daqiiqadii hadda ugu dambeeyana waxaa la qirto maraykanku qirteen in helicopter laga soo riday waana taas tan iyaduna runtii aad iyo aad dhabar jabka waa iyadoo la qariyay markii hore waa la sheegay helicopterka inay soo dhacday laakiin way soo dhacday baa leeyihi su-aal baa taalla maxaa hadda loo qirayo leys waxaan rabaa inaan helicopterta usoo noqdo ii dul qaado waxaan rabaa in wax kaa weydiiyo saldhigyada militariga satellite-ka sawirada laga soo qaaday ee burburka uu soo gaaray burburkaasu burbur weyn oo saldhigyadaas militarigu aysan u shaqayn karinba maxaa ku dhacay difaacii cirka israa'iil ay ku dhaaran jirtay ay tiri nalooma soo gudbi karo warar israa'iil ka soo baxay militarigooda waxay leeyihiin wixii iiraan soo riday oo dhan hawada sare ayaanu ku cunnay warbaahin kale waxay leedahay skyga uu ka mid yahay oo aan arkayo halkan baan kasoo daynay inay yidhaahdeen mid ka mid a saldhigyadii ugu weynaa waa la duqeeyey inkastoo aysan wax weyn soo gaaray si ay u sheegayaan sidee la isku waafajinayaa difaacii cirka israa'iil maxaa ku dhacay 2,000 mayl baa la isku jiraa sidee uga hortegi waaye cabdixafidow waxaa jirta maamaha soomaalidu ay isticmaali jirtay oo la yidhahda gaala jabkeeda waa qarsataa arrintaas waxbaaba ka jiraba nimankan horta jabkooda ma sheegaan laakiin waxaa la xaqiijiyey oo saxaafadda israa'iil ay xaqiijisay in saddexda goobood ama saddexda saldhig ee ciidanka cirka israa'iil in gantaalo lagu dhuftay weliba si xoogan nabar loogu geystay waxaa kale laakiin jirta gantaalada qaar ay waddanka urdun ay soo riday ama jordan ay soo ridaa jirta taasina waxay keentay in iiraan ay u hanjabto una dhaarato iiraan waxay sheegtay waddan kasta maaha kaliya urdun way la hadleen waxay dhahaan haddaad mar dambe gantaal annagu aan leenaho israa'iil ku socda haddaad taabataan adinkana iyagaad la mid tihiin marka arrinta waa cirkay sii geliyeen waxay yidhahdeen waddan kasta oo isku daya gantaalladeena iyo daroonada israa'iil ku socda inay dhexda ku qabtaan iyaguu la mid yahay dagaalka si ay nugula jiraan iyaguna dagaal bay nugula jiraan marka waxaad arkaysaa waa la soo riday gantaallada qaar urdun baana wax soo ridaa layidhi bahalladii ii sheeg aan idhaahda david sling iyo arrow 1 iyo arrow 2 iyo arrow 3 iyo alaabtii lagu faani jiray maaragtay iron domkii kuwaasu dee horena waxba wayba fashilmeenba way shaqayn kari waayeen waxaana jirta in dagaalka 40 cishaha ay waxba qaban kari waayeen taas ayaana keentay in urdun iyo marka gantaalka uu dul maray wadamada qaliijka inay isku dayaan inay soo ridaan iyagu injineer ma urdun baa qabatay mise labada saldhig ee military ee maraykanku uu ku leeyahay jordan baa hawshan wada haddee waa su-aal aad iyo aad u wacan waana mid aan u baahan runtii in la hubiyo kolle bahalada urdun dusheeda lagu soo riday waxaana taas iiraan u micnaysay inay tahay urdun waxa soo ridaya hadda saldhigga maraykanka ee urdun ku yaalla hadduu soo rido waa urdun unbaa soo riday dagaalku qayb bay ka yihiin waana arrinta dooda ay iiraan hadda la soo shirtagtee ah dagaalka ayaad qayb ka tihiin arrintaas absolutely arrintaasi waa arrin siyaasadeed oo xisadii gobolka oo dhan kor u qaadaysa geynaysana runtii meel aad iyo aad xasaasi u ah dhicina karto waana tan hadda maraykanka uu ka calaacalayo oo uu isku dayayo in arrinta la qaboojiyo
in xiisadu sii kacdo ayay dhici kartaa cabdixafiid. injineere waxaan rabaa hadalkan kaaga kala gooyey oo aad daawayaashuna aan hubeyna u xiiseynayaan diyaaradan lasoo riday ku saabsan inta aanan u teginin iiraan haddii khaliijkii ay weerartay, israa'iil ay weerartay, maraykankii saldhigyadiisii ay weerartay, jordan hadda ay u hanjabayso, iiraan ma awooday isku halaynaysa ayaa jirta mise sida dadka qaar ay leeyihiin waa naflacaariyo cid walba waa qarinaysaa oo waa ku booraysaa cadow badan samoysa samaysanaya haddii xaaladdu saas tahay aysan awoodna ku muquunin karin. aad baad u mahadsantaha cabdixaafid, su-aashaas runtii waa soo noqnoqotay. horaana loo yiri iiraan cadowbay samaysay, wadamada khaliijka ayaa arrintaa doodaas ka timaada inta badan. laakiin mid baa hubaal ah oo u baahan in maaragtay runtii xaqiiqada laga sheego. iiraan waxay haysataa qalab ay ku ogaan karto gantaal kasta ee lagu soo rido ama gantaalkeeda cidda ka hortagta meesha looga hortegay. waxay haysataa qalab satellite ah oo ay ku ogaan karto daroonku meeshuu ka soo kacay haddii daroon lagu weeraro, gantaalka goobta laga soo riday. waxaasoo dhani weliba si aan caadi ahayn bay uga warqabaan. taas ayaana keentay in ay tiraahdo markii horena waa la ogaa waddan kasta ee saldhig maraykanka siiya wuxuu la mid yahay ama dhulkiisa laga soo weeraro dagaalkay qayb ka yihiin. taas ayaana keenaysa waa wax hore loo og yahay, wax la qariyey maaha. ama cadow hana cadow waaba yahaba cabdixafidow. haddii qadar laga soo rido gantaal iiraan gudaheeda lagu rido ma oranayaan mataqaanaa maraykanaa soo riday, qadar baa soo riday waddankeeda laga soo weeraray. taasaa waxay sharciyad ka dhigaysaa in aad waddankaas jawaab celin u samayso. inkastoo iiraantu ay isku dayeen xataa inay weeraraan saldhigyada maraykanka keliya, haddana waxay xaq u leeyihiin waddan kasta oo laga soo gano ama daroon ha ahaato ama mataqaanaa qalab kaleba ha ahaatee in ay toos u weeraraan xaq bay u leeyihiin. sababtoo ah waxa weeye sharciga 11 ee qaramada midoobe ayaa dhigaya in maaragtay waddanku uu xaquuq u leeyahay inuu isdifaaco. cabdixafiid waayahay injineer, diyaaradan helicopterta baja helicopterka layihahda dagaalka noocii ugu casrisanaa ay ugu dambeeyey baa maraykanka waxay sheegteen in laga soo riday. markii hore waa qarinayeen. maxay u qarinayeen marka hore? marka xigtase iiraan ma aysan sheegin inay soo riday. donald trump ayaa isagu yiri iiraan baa naga soo ritay, dagaal baana qaadaynaa. arrintu ma nabadoon baa donald trump nabad buu baadi goobayaa mise haatan ayuuba u farabaxsanaya inuu dagaalamo? cabdixafido horta donald trump masiibuu dhex fadhiyaa. waa koow meel aanu ka bixi karin ayuu dhex fadhiyaa. wax kasta wuu ku hadlayaa, waxaana keenaya ciilka iyo maaragtay hurdala-aanta uu dagaalkan iiraan u keenay. waxaana runtii muuqata ma aha keliya culayska donald trump saaran iiraan keliya ma aha, waxaa ka daran culayska gudaha maraykanka haystaa ka daran. waxaa jira shacabka reer america raalli kama aha dagaalka iiraan lagu qaaday. ilaa haddana lama sababayn, mar walbana waa la isweydiiyaa sababta qaaday. taas ayaa waxaana loo sheegay markii hore in 2 asbuuc 4 asbuuc lagu soo aftarayo. iiraan weli way soo taagantahay, hogaamiyaashii dhan waa laga laayay, taliyaashii ciidamada waa la laayay. niman kasii mataqaanaa culus oo runtiiba intaasoo sano odayaal ay hor fadhiyeen ayaa hadda fursaddii helay. waxaa kaloo iiraan aad iyo aad u caawiyey oo runtii la dhihi karaa faa'iido weyn bay ugu fadhisaa wadamada saaxiibada ay la tahay sida ruushka oo runtii aan ognahay waxa ka haysta xagga iyo ukraine iyo sida maraykanku uu ugu labacanleeyo maaragtay isagoo dhinacna wada xaajood ka wada uu hubka u bixinayo, uu sirdoonka u bixinayo, meelaha la duqeynayo u sheegaya iiraan. satellite-ka maraykanka la-aantiisna ukraine ismay daafici karteen. tii oo kale ayuu ninka layidhaha putin ayuu isticmaalaya, wax walba ku bixinaya in aan iiraan la jibin. garanaysaa waxaa meesha jooga iyaguna oo ku siyaasad ah Chinese-ka oo weliba haddeertaan waxaa la leeyahay qalab casri ah, qantaallo casri ah oo kuwa maraakiibta lagula dagaalamo ah ayaa loo wareejiyay iiraan baa la leeyahay. arrimahaas waa arrimo hoose oo sir ah oo aan weli wax xaqiijiyana aan la arag,
laakiin inay jiraan bannaanka lasoo dhigay marka inuu Donald Trump marna yiraahdo annaga waxba nalooma geysan ama uu mar yiraahdo diyaarad baa nala ka soo riday waxay ka mid tahay waxyaabaha uu isku dayay inuu ku barashar gareeyo Iran iyo hanjabaad iyo cagajugleyn beena oo wax ka dambeeya aan la qofku fiiri marka dhowr jeer yiraahdo waxaan samaynayaa oo ku celceliyo oo samayn kari waaye haddana waxa loo qaadanaya wixiis wax inaanay ka jirin Trumpna marxaladaas ayuu ku sugan yahay ma waayeelnimadii baa ku soo baxday ma dementia waxyaabo badan baa lagu sheegay odaga caafimaad darra lagu sheegaya dementia helmaan baa lagu sheegay inuusan maaragtay mararka qaar xataa golaha wasiiradiisa aanu magacyadooda soo dhufan karin ma waxyaabo badan baa adiga odaga lagu sheegaya marka odaga runtii xaalad aad iyo aad u cakaro qodob kale ku daraya oo ah in America stock marketka oo Donald Trump aad ugu xiran yahay ay qalqal u galay maaha kaliya macaashada stock marketka laftiisu qalqal weyn baa galay wadamadii reer Yurub qalqal baa galay hadda waxaa jirta in diyaaradihii ay shidaalka gadan kareen taasuna keentay in qiimaha tigidhada ay cirka isku shareeraan oo aan la gadan karinba waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday oo culaysa ayaa odaga haya wuxuu jeclaan lahaa wuxuu u caytamaya Netanyahu u aflagaadeynayo ula dagaalamayaan wax kala maahe wuxuu doonaya dariiq wuxuu raadinayaa oo dagaalkan ku soo afjaro isaga baxo dahab injineer odaygu waxaad sawirka ka bixisay inuusan dagaal rabinin nabad uu doonayo awood uusan lahayn 100 jeer uu soo celceliyey hadallo fara badan tusaale ahaan haddaan daawadayaasha xasuusino bartamihii March ilaa iyo haatan 16 jeer ayuu yiri saacado kadib aan qalinka heshiiska ku duugayaa wax ka fulay habeeraatay ma jirto taariikhda halkan ku qoran oo dhan waa markii uu hadlay oo yiri haddaan qalinka ku duugayaa waa suurtagal laadahay laakiin waxaynu ognahay hal arrin oo Donald Trump uu awoodeeda leeyahay oo ah inuu leeyahay culud military oo Iran oo ku weeraro oo markaas dhibaato fara badan oo ku geysto dhimasho dhaawac iyo burbur keenta marka ma tabar yara Soomaaliya dhinaca marka laga eego haatana waa asaga waa ka jawaabina diyaaradana laga soo riday Cabdixafiidow marka xaqiiqada laga hadlo Donald Trump war badan ma hayo Mareykanku tababar ma hayo dagaalkan wuxuu fashiliyay Mareykanka awoodiisa Iran dal weyn wey Iraq maaha in Iran la qabsadana markay ugu yaraato nus milyan ciidan ka badan loo baahan yahay ilaa 1 milyan Irantu waxay sameeyeen dad baa isqoray ilaa iyo 20 milyan ka badan oo doonaya in ay maaragtay janno doontaan oo shahiidaan sida iyagu ay sheeganayaan dad ay waa shahiidayaan ayaa la soo qoraa maalin walbaba Iiranta oo leeyahay way isqoreen dadkan waa dad mutadawiciin waddanku waddan buuraleeya weeye saxarihii Ciraaq lagu durdurinayo maaha midda kale dadku Ciraaq markaad ka hadlayso waa dad carab ah nimankaanu carab maaha waxaad aragtaa iyagoo waddankooda ku mudaharaadayay ayaa dagaal lagu qaaday wixii mudaharaadayay iyo wixii kaleba mid bay noqdeen meel bay kasoo wada jeesteen Iran way ka sii awood badan tahay maantay markii dagaalka lagu bilaabay sababtoo markii dagaalka lagu bilaabay waxaa jirtay kooxa kacdoon baa jiray nolol shacab laga hadlayay laakiin markii ayatollahigii la dilay oo hogaamiyaashii la laayay oo jaamacadihii la burburiyey oo iskuuladii iyo carruur yaryar oo iskuulla ku jirta la laayay dadku waxay arkeen in ayaga loo socdo maaha maamulaa loo socdaa iyo xukun baa la bedelaa iyo sheekadu way ka weyntaa waxayna arkaan waxyaabaha wadamo hore lagu sameeyey warkan ma seegana waxyaabahaas oo dhan markaa isku darto waxaa kuu soo baxaya Maraykanku hadduu Iran ciidan ku aado tii Vietnamtu ka daraa dhacaysa ma aadi karo taas ayaana keentay in afka noolo u noqdo Trump oo aanu tabar iyo awood ciidan oo uu maanta Iran ku maqoonin karo inaanay meesha dambana waxaa u fadhiya oo baarka ku jira oo suganayo doonaya inuu ku jabo meeshaan uusan weligii ka lug bixin Chinese iyo Ruushka labaduba waa laba super power waa laba dalo waaweyn waa laba dalo dhaqaale fiican leh ayaga meeshaan u fadhiyo raba Maraykanku meesha qabrigiisii in la qodo ayay ka shaqeynayaan iyaguna Cabdixaafid injineer aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa 100% sharaf iyo karaama ay ahayd markale hawada kulanay daawadayaal
waxaan aad iyo aad idinkugu dhiirigelinayaa oo anigu aan shakhsiyan idinkaga codsanayaa in aynu ku xirnaano channelka engineer axmed abtidoon oo wararka ugu dambeysay oo kuwan ka baaxad badan ka waqti dheer isla mar ahaantaasna in-depth faalla ah aad ka helaysaan oo meel laga helayo kale aan jirin in aynu markaa halkaa isugu tagno oo aynu wararka halkaa ka dhuuxno war la helaa talo la helaa liir engineer waa mahadsantahay 100% daawada intaanu kanoo kale dib u kulmi doono waxaan ugu leenahay nabadgelyo